iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay isbeddello hordhi ka socdeen deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa telefishinka qaranka Soomaaliland u kurgalay xaaladda isu socodka xuduudda u dhaxaysa wadamada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya isla markaasna uu sii xoogeysanayo xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya haatanna uu isu socodka badeecadaha ganacsiga ee dadku marayo meel fiican waxaana shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada xuduudda Togwajaale ee dhinacyada Soomaaliland iyo Itoobiya ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ku amaaneen doorka ay ka qaadatay sugidda amniga xuduudaha labada wadan sidoo kalena waxay soo dhaweeyeen isbeddelka ka curtay deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya waxaana hadaladoodii kamid ahaa Cabdi Umar Siyaad naanaystana Cabdiqili baa la yiraahdaa waxaan ka imid magaalada Qabri Bayax hadda nimaka ka soo talaabay xagga Itoobiya marka waxa weeyaan dadku si fiican ayaa uu isugu socdaa xagga baayac mushtarka iyo xagga xiriirka dadweynaha nooc kastaba marka waxa weeyaan rejiimkii hore ee haysanayay dadka ee dhibaatada xagga kilalka shanaad aad baa looga gudbay imika dawlad cusub oo imika dhaqdhaqaaq wanaagsan oo xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya ba hagaajinaysa ayaa imika inoo dhalatay waxa weeyaan dadku imika nolol wanaagsan baa la galay Soomaaliland iyo Itoobiya xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeyay imikana xiriirkii baa sidii loo wadaa dadweynuhu aad iyo aad buu isugu faraxsan yahay aniga gacanteedu waxa laga yaabi jiray inaan magaalo qaran la yiraahdo halkan aan soo talaabi karin hadda koor oo dhibaato badan dadka haysatay cadceeda ugu dhici jirtay ilaa waxa laga yaabaa 12 saac in la joogi jiray magaalo qaran oo dadka aad iyo aad dhibaato loogu hayay imikana waxa weeyaan free weeyaan dadku si fiican baa loo socdaa waxa weeyaan dawladda Soomaaliland si fiican bay u soo dhaweynaysaa dadka Itoobiya si fiican bay u soo dhaweynaysaa xiriir wanaagsan baa dadka ka dhaxeeya waa dad wada dhashay waa dad waligoodii alo xiriirkooda soo jireen sidaas aan ku haynaa arrimaha anagu hadaanu nahay labada dacalba imika wax dhibaato oo ma garanaysaa ay jira haba yaraatee ma jiraan dadkii ma garanaysaa markaa ka soo yaacayna way ku soo laabanayaan oo Wajaale ka soo laabanayaan Boorame ka soo laabanayaan Hargeysa ka soo laabanayaan marka aad bay wanaagsan tahay imika niyow dadka deegaanka jigjiga ee magaalada imika deegaanka iyo ee deganahay aniguna dadku horta aad bay ugu riyaaqsan yihiin isbeddelka dhacay anigoo jiif caaqilka guud ee degmada Togwajaale waxaan soo dhaweynayaa xiriirka ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo halka uu maraya aan weligii gaarin isku socodka bulshada Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo meel heer sare maraya yaan aad iyo aad soo dhaweynayaa oo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka soo jeeda ana mareeyo Wajaale noqoto Jigjiga noqoto aad baan soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta madaxweynaha Muuse Biixi aad baan soo dhaweynaynaa maxna talaabooyinka uu qaaday way labada dal xiriir baa ka dhaxeeya wada shaqayn fiican baa ka dhaxaysa wana laba dal oo jaar Mustafa markaynu ka hadalno kulay waa nin aqoonyahana waa nin deegaanka wax ka soo qabtay waa nin deegaanka wax ka soo ahaa waa nin wasiir soo maray waa nin aan wada garanayna aqoonta uu leeyahay waxaan u malaynayaa isbeddelka ugu fiican inuu hadda Mustafa macnaha kamida dhalin karo deegaanka ilaahay waa Yaalna Xaaji TV-ga qaranka Soomaaliland magaala ganacsiyeedka Togwajaale.